حفلتني ومهم وأنا كما هتنتين قابل ذا سببتها اللحية لباتن كجول ومالنتي وهريسي يعلم صوماليا ذا حرقة لصارو لقنا تاجو جيجة صوماليا اللحية لباتن كجول ما أنت ساعة كوبان أما دقيقة كوبان كدي بوحنو باللابن دونا أسبوع عدل كصوماليا لوجي يرو أسبوعي حريته ومالنتي كسون تنايد مانتا إن أنك حروبني جميسي مركي ووريسي كنتني استقال سنكو ومالنتي وابوان عبد الله سلطان تما عدو يرين ساعر كي كلا جورنيا سدو يا إجنا كان سيد كان سا ومالنتي أبوان علي الديرية ويري maanta waa dharaartay dhibaataduna daysay dhulku noo iftiimee maanta waa dharaartan gobonnimada dhalinay calankii dhidibnee calanyow ha dhicin calanyow ha dheelin weligaa dhisno waa maalintii uu bilowday macnaha taariikhda calanka Soomaaliyeed uu ku fadhiyo waa maalintii codatay hashii maandeeq oo ay weliba mataanaysay قبلها يوليش الصومالية ذو هالكفردية ودليل هذا وقف وليبا وعلن كهيستو وعن عسوسنا إن علن كاس لقصو بحيين ليك بدن إن لو صوم مراي ليك بدن إن لقو كيني إن قميسي دل كان لقصو حريو إن دليل إذن كإذن لمدا أي إنتي قميسي دل كوذا كحريين تاكتين علنكاس ولبا يدبا دقين أنك نقصو وريكيه إذن كان وحال إذن كربا إن النقطان دفاعياش علنكاس واتيل يري علن كان افتيمي حديك تاكو استيسن إلهي نسي إساقا كوا بالي ومعلمتي سيدة نبتأها لو عيدي وكينا دحلسيي حرنمو وكينا دحلسيي دولدنمو وكينا دحلسيي نبط يمدنمو وكينا دحلسيي إنا دوني كم النهاي والصمد لغو قرطدت كصوماليات عن عالم كاسساقا كم الجدن عاوة وحان إلهي أقرينا إنو جنة كورابيو ونما هذا علينا قف والبا وديجي سكسو بحسي عالم كاس عاوة وحان إسحسوسنا إن أنغونا سوى قدنو نفتنا يديجينا هالكن وحان ربا إن أنغوما هذا عليو أما أنا حسوسنا اللهم حريستي أحمد قري حاجي فارح عمر سيد محمد عبد الله حسن شيخ بشير شيخ حسن برسامي حاوى عثمان حاوى تاكو محمود حربي يا دمان سدحي طبعا كيدا ليرو اس وايل وحاكلو جيرات دد بدن oo Soomaaliyeed oo ah heesayaal aan loo heesin oo dhaliyay midnimada Soomaaliyeed iyagana waan u mahad celinaynaa اللهم حريسته برا أحمد نور يوسف ويسجي لها على كان السوبان وسماد ويكو مالنتي للسوري سيدان الدونيو سمكو قارنا يو سعودي باتهاي وهنا مسترك عنا سلامة الله ارتقنا مركي لساربا وصعبتنا قاربان نوت اللي علنك
noo keenay gobonnimada noo dhiraandiriyey midhaha iyo heesaha innaga waxaa mas-uulna loo kaga dhigay inaan ilaalino taariikhdiisana aan ku wareejino kuwa naga dambeeya caawa waa xusuus wadareedkii dadka Soomaaliyeed oo dhan oo ku suntan sanadkii 60 oo hadda laga joogo 59 sano waa sanadkii laga miraneliyey dadaal dheer oo dad u soo dhibtoodeen su-aashu waxa ay tahay marka 59 sano kadib xaggee baan joognaa bulshada Soomaaliyeed ee maanta nool waxaa lagu qiyaasaa in 70% ay da'doodu ka yar tahay 30 jir waxaa kaloo iyaduna isku jaan go'an caawa 30 sano oo aan dowlad ahayn iyo ku dhowaad 30 ama 29 sano oo qalalaase iyo soo kabasho isugu jirta waa taariikhdeenna qoran 59 sano kadib xaggee baan taaganahay haddaba qof waliba oo Soomaaliyeed waa inuu milicsado 60kii iyo 59 sano oo ka dambeysay waa inaan isweydiino maxaa suurtageliyey sanadku markuu ahaa 1960kii in wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo naga aqoon yar oo naga xoog yar oo naga xoolo yar inay ku dhiiradaan iskana xoreeyaan gumaysi dooda caawa waxa ay tahay baahida loo qabo in xorriyadda laga sii shaqeeyo baahida loo qabo in la suurtogeliyo in dadka Soomaaliyeed ay ka sii shaqeeyaan midnimadooda inay isku tashadaan oo isku tolnaadaan waxba iskama bedel doodu waxay tahay 60kii waxaa isu yimid gobollada waqooyi iyo kuwa koonfureed waxaa naga lumay wixii naloo dhiibay macnaheedu waxay tahay shaqadii ay soo qabteen dhallinyaradii dhalisay xorriyadda oo isu keenay gobollada waqooyi iyo gobollada koonfureed caawa 59 sano kadib waa ay taagan tahay waa isbeddel weyn oo aanan caawa u sharxi karin allah u naxariistee timcadde aanan u sharxi karin xaaji aadan afqaloo oo aanan u sharxi karin cali sugulle aanan u sharxi karin cabdullaahi qarshe iyo Soomaalidii 60kii u soo dhididay inay xorriyadda dhaliso waa su'aal dhib ah oo qof walba oo Soomaaliyeed ay tahay inay xanuujiso halka deegaanadii waqooyi ay tabasho siyaasadeed ku maqan yihiin qaybtii koonfureedna waxay sanado badan la daalaadhacaysay dib u yegleelidda qarannimadii dib u dhalin lahayd midnimadaas haddii sanadku markuu ahaa 60kii ay Soomaalida gobollada waqooyi iyo kuwa koonfureed haddii ay gacmaha isqabsadeen dhaliyeen xorriyad oo ay intay isu yimaadeen ay yidhaahdeen Soomaaliya ay toosoo isku tiirsada taageera hadba kiina taag daran haddii ay waqtigaas yidhaahdeen maxaa caawa annaga nala gudboon ragga iyo dumarka halkan fadhiya su-aashu waxay tahay caawa maxaa inala gudboon marka hore waxaan leenahay walaalaheenna waqooyi waxaan ka mahad celinaynaa safarkii ku salaysnaa qarannimada iyo dhiiranaanta ee dhalisay midnimadaas ay ku keeneen calanka waxaan ka garaabaynaa wax walba oo tabasho ah waxaana leenahay waxaan diyaar u nahay inaan soo celinno gacantii aad keenteen mid la mid ah ama ka weyn macnaheedu waxay tahay Soomaali haddii aan nahay waxaan nahay walaalo aan kala maarmayn
dadkeenna halkan joogana oo ka mas-uula dowladda iyo dhammaan shacabka reer koonfureed waa inaan aqbalnaa dadaalkii ay muujiyeen walaalaheenna waqooyi. waxaan leeyahay marka qofna jirkiisa barkiis kama maarmo. dunida maanta aan ku noolnahay oo dagaalku yahay xeeladaysi, dadku ay difaac isu yihiin, tiradoodana lagu tartamo, khayraadka la isku dulmiyo, maskaxda la isku gumaysto, walaal la-aan lama noolaan karo. si aan jiilka dambe ee soo socda ugu wareejinno dal nabada, dad midnimo leh, nolol barwaaqo ah iyo magaca Soomaaliyeed oo haybad iyo karaamo leh, waddada ama waddadii wadajirka ma ogiye waddo kale aniga iima muuqato, maadaama waddada keliya oo noo muuqata waqooyi iyo koonfurba ay tahay waddada wadajirka. waxaan leenahay waa inaan qaadnaa tallaabooyinka ugu dhaadheer haddii aan nahay dadkeenna jooga koonfurta. iyagana waxaan leenahay walaal la-aani waa wax la-aan. sidaas daraaddeed dadka Soomaaliyeed oo ilaahay khayraad iyo wax walba ku manaystay si ay u ilaashadaan khayraadkooda, maadaama dunida iyo khayraadka yaalla iyo dadka dunida jooga ay dadku badan yihiin, khayraadkuna yar yahay, dalkeennuna uu ku yaallo meeshii walaalaheen ay gumaysiga uga soo xoreeyeen. midnimadu waa astaanta jiritaankeena. si marka midnimada aan uga shaqayno caawana maadaama aan joogno galmudug, calankana la saari doono mar dhow 26 bishii Juun magaalo madaxda galmudug ee Dhuusamareeb. waxaan ku rabaa inaan ku soo qatimo jawaabtii su-aashii Sheekh Shaakir oo ahayd inay diyaar u yihiin inay gogol fidiyaan. waxaan leeyahay geedkii, golihii iyo geygii iyo gurigii nabadeed ee Dhuusamareeb waa in la dhigaa gogol gacaltooyo oo looga shaqeeyaa in doorasho halkan lagu qabto. laakiin si ay taasi ku dhacdo waa in la soo buuxiyaa shuruudaha ay mudan tahay, oo ah in sida uga dhaqsaha badan halkan looga howlgeliyo dhammaan hay-adaha federaalka ay uga horeeyaan hay-adaha amniga, si Soomaaliya oo dhan halkan ay u yimaadaan. waa mahadsantihiin.